barnaamijkan waa barnaamij aan ku eegi doono hadduu Ilaahay yiraahdo wuxuu yahay xalka iyo waxa la gudboon dadka Soomaaliyeed dalkan muddada 30 sano ah burbursan khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa la gudboon ma tahay qof dhalinyaro ah oo doonayo inuu dalkiisa wax u qabto waxna ku soo kordhiyo fikir waxa ugu yaraadeen ra'yigaadu waa inoo muhiim fadlan nala wadaag dalkan Soomaaliyeed ayaa waxa la aaminsan yahay ama fikirka qofka uu tusinaya in lagu badbaadin karo cudud iyo dhaqaale dadka Soomaaliyeed ayaa lagu qiyaasaa 75% inay yihiin kuwa ka da'yar da'da 40 sano dadka dunida dadka 40 sano ka yar ayaa ah kuwa looga baahida badan yahay waxgalkana ah marka aad eegto dalalka Yurubta iyo galbeedka waxa lagu tilmaamaa ninka cadi inuu waqtigiisa sii dhacayo oo uu sii dhamaanayo taasi oo sabab u ah in qofkiiba uu guursado hal dumar oo kaliya ninkiiba niraahdo uu guursado hal dumar oo kaliya ugu badnaana ay dhasho laba qof oo kaliya isku celcelis ahaan marka la eego qofkii jooga dalka Yurub ama dadka cadaanka ah baa niraahdo guud ahaanba qofkiiba qof ma dhalo marka la isku celcelisaa familiyada qaarkood ayaananba wax dhalin halkaas aan kaga soo baxno tusaalahaasi dadka Soomaaliyeed ayaa la aaminsan yahay cudud dhaqaale iyo awood hadii ay isu geeyaan khaasatan dhalinyarada xooga in dalkan si lama filaan ah lagu badbaadin karo dhaqaalihiisa iyo ammaankiisa iyo dhan kastaba marka la eego dhanka kale dadka Soomaaliyeed ayaa ammaanka xaqiis hadii la eego 75% maadaama ay dhalinyaro yihiin dadkaasi ayaa dhammaantood ku biiri karo ciidamada qaranka iyo badbaadiyaasha qaranka dadka Soomaaliyeed oo 75% dhalinyaro ah hadii qof kasta uu qaado dhagax una meel dhigo dalka ayaa wada dhismanaya hadii dhaqaale ahaan qof kasta wixii uu awoodo soo saarka beeraha waraabka dhulka iyo dadka dhiban gaarsiintooda biyaha iyo cunnada hadii qof kasta oo jiifi lahaa ama waqtigiisa ku bixin lahaa internet iyo wax aan loo jeedin hadii cudud la isu geeyo ayaa waxa la aaminsan yahay dalkan si lama filaan ah loo badbaadin karo balse talada hadii ay mideysneen awooda marna ma mideysmayso ma kula tahay adigan hadalkan maqlayo in uu yahay qofka ama madaxda dalkan kuwii ugu haboonaa inay yihiin mase kula tahay hadii ay yihiin kuwii ugu haboonaa in aanay haynin wadadii ugu haboonay mase kula tahay in waxa ay u baahan yihiin ay tahay codka dhalinyarada oo kor u dhawaaqo codkoodana u gudbiyo madaxda sifa taladooda wanaagsan loo qaado kula tahay mutadawacnimo aanan mushahar loo baahnayn in lagu badbaadin karo dalkan dadka Soomaaliyeed ee gaajada u halaagsamayana looga badbaadin karo gaajada ma kula tahay wax soo saarka dalkan sagxadda maraya in kor looga qaadi karo in la badbaadiyo dhaqaalaha oo wax soo saarka dhulka la badiyo oo dhulka Soomaaliya oo intiisa badan dhul beereed lagu tilmaamo wax badan laga soo saaro goob kasta oo dhul beereed ahna la gaarsiiyo biyaha wabiyada ama biyo xireenna in loo sameeyo waqtiyada roobabka sifa dalka looga badbaadiyo oon iyo abaartoona ma kula tahay hadii beerashada dhulka la badiyo in dalka Soomaaliya la badbaadin karo ama aan si kale hadii aan u dhigo deegaanada ay ku nool yihiin ummadda Soomaaliyeed dhammaan wixii hoostago Kenya iyo Ethiopia wixii hoostago iyo dhanka kale Djibouti ma kula tahay cudud iyo ciidan la isu geeyo in lagu badbaadin karo ficilka waxa ka horeeya afka oo talada in ay midowdo wax badan ka qaadan karo maxay adigu kula tahay fikirkaaga inoogu soo gudbi dhanka WhatsApp-ka
haddii aad muuqaalkaaga nala wadaagtana ama codkaaga nala wadaagto oo uu sawir la socdo hadduu eebbe yiraahdo waan ka baahin doonaa barteena YouTube-ka ee Xusni News. haddii aad cod kaliya noo soo duubto insha Allah oo doonayso in lala wadaago dadka Soomaaliyeed waan la wadaagi doonaa insha Allah. dhanka kale waxaan u baahanahay fikir caafimaad qaba oo caadifad qabiil aflagaado ka reeban oo si anshax leh adaabtana marsan codkaaga inuu yahay. haddii aad nala wadaagto cod wax kala insha Allah tacaala waxaan si istaba jooga u baahin doonaa ka qayb qaatayaasha codkan oo si toos ah aan ugu baahin doonaa barteena YouTube-ka ee Xusni News si ay u gaarto madaxda sifa cududda iyo awoodda dhalinyarada loo mideeyo dalkana loo badbaadiyo. waad mahadsantihiin. ilaahay idin sharaf dadkeena Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna ilaahay ha mideeyo, ilaahay dalkooda iyo dadkooda ha mideeyo, ilaahay wadajir ha ka dhigo insha Allah tacaala. taladeena ilaahay ha mideeyo, wadada saxsan ilaahay nagu soo. fikirkaaga waa muhiim, fadlan inuu soo hagaajiyo dhanka WhatsApp-ka oo aan lambarka soo saari doono qaybta shaashada ee ugu dambaysa muuqaalka qaybihiisa dambe. aad baad u mahadsantihiin. ilaahay idin sharaf dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta.